هاي ميرا تتاي وتاي هودانات وتاي وفاي بلاك تاي وتاي هودانات وتاي وفاي بلاك تاي دلكاغا 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 لغا هلا دلكاغا 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 لغا هلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ولا ريال داود ريال كسر دوادا برنامجكني هذا نوكل أذكبرتين تيفيجا اللي ورنشري برا كود يوم مركل لصاق قابيو أو حاجة قالسو هل هذا أيام أنت هل كان عن مرتي واه هل أحمد يوسف ياسين أو dhammaantiin iyo badankiinnaba aad garanaysaan oo ahaa dawladdii riyaale ee ka horreysay ee udub madaxweyne ku-xigeenkeennii muddada badan xilka soo hayay ee haddii biimaayo waddanka wax badan u soo qabtay ayaa wuxuu ka mid yahay dadka la soo doortay ee weliba aad loo soo doortay ee la qadariyey eenani weydiinay ee aad ku sharafteen waxqabadkiisii iyo dadnimadiisii markaa maanta oonu ku booqannay oonu kaalintiisii soo gaadhnay oonu ku booqannay xaafaddiisa gurigiisa ayaa waxaanu leenahay axmed haliyey mudane aad iyo aad baanu maaragtay kugu mahadnaqaynaa soo dhowayntaada aad nagu soo dhowaysay gurigaagii iyo waqtigaaga qaaliga ee aadna siisay si laguu barto oo lagu xogogaalsado waddankana loo xogogaalsado waxyaalo badan oo kugu duugan waxaanu kaa codsanaynaa marka ugu horreysa inaad noo sheegto xaggii aad ku dhalatay iyo waqtigii aad dhalatay iyo xaggaad ku soo barbaartay iyo tacliintaadii hoose dhexe iyo waayo aragnimadaadii iyo qoyska aad ka soo jeedo inaad maaragtay warbixin kooban naga siiso بسم الله الرحمن الرحيم وتشرف فايتهاي أنا نقول بك هينين إلا صوت دورته إنك مسك كلاس كفردين صوت دورته صوت وشرف وين مكاين عندك كي صوت شرفي أي كبير هذا هو لقام برمان هلية قلت هلية يروحوا لما أنا يا موقف هلية نقولنا يا تقول هاي فمن سحسح على النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة دي إلا متاع وغرور ما أنت حق كذا اللي يقول يحاول تنظر الشغل أيوة تحليق قبلك وياهي كانوا عارفين وكيا الدنيا ده لكن كقدام بيه حليق رسمي جوا كاوي إلهي هنقصه وكاهين جالسين هذا واحد دون يا فهمت أنت أنا أرجو أسكلين وحقوه الرئية ني أنا والله بقى قوس بك صقعي قوس كاوك صقعي أمبو أثرتي سؤاليها مركا هدي أن أنقضوا قوس كيجي أبهاي isagoo yar oo agoona ayuu soo galay magaalada Berbera oo aad u yar abi wuxuu isagoo la jira awtay ku horeeyeen dad wuxuu iskurs buuxa wuxuu ugu yiri Berberaan galay anoo aad u yar dabeedna la foodhag uu iskoriyay wuxuu yiri waxaan noo ahaa hooy badda dhinaceeda inta soo jeexano ayuu qeybkii korka saarsan habeenkii marka halkaas uu ka soo kacay dabeedna DCgii markaa haystay Berbera macis ma hoobe waxa la jiray Feron ama Soomaaliya taqaan Fiora waxaan kaasa ayuu la shaqeeyay muddo dheer dabeedna 1946 kii buu noqday kaayaasha caafimaadka ee Hargeysa ka noqday ama waxaan jiray Dressers la jiray oo dhakhtarku wuxuu ahaa markii hore halkan TB-da halkaas laga bilaabay waayahay dabeedna halkaas uu ka bilaabay markii dambe wuxuu ku wareegay boosaha أما إسكارسينته وهالكل شيء تعبير ما هاي كان رفض كسوج ده تنودن بيس أنا تركودن بيس لكن تي هراء كان عارف كان وسرد تعليم تقابلك تبديده هكذا سوين شيء تعبير هكذا سوين دموس هكذا سوين دموس سوري وكانوا وحن كل شيء رفض هرقيسة وحنا السياسيين ير في يوجا أما أنشرين بيكور شرطر
waxaan u wacantay aabahay waxaan jiray kaaya caafimaad soo maray ayaa hadii ii sabtay inaan ku dhasho nasiib baad u yeelatay. aan ku dhahaa 1957 markaa aan ku dhashay dabadna markii aan dhashay 1961 odayga waxaa loo bedelay markaa ka shaqaynaya oo ka wareegay dhakhtarka oo shaqaynaya telefoonada aan u sharxo dhalinyaradeena telefoonada barigaas waxa jira exchange baa jiray waxa weeye telefoonkaaga toos qof kale oo lama xiriirin ilaa aad marto exchange markaa exchange-ka ku gudbinaya ka isku jirtay post iyo telefoonada isku jireen waad dalbanaysaa in numberka aad la hadashay waad dalbanaysaa ka odayga loo bedelay 1961 loo bedelay berbera halkaasaan ka galay macaamada u horeysay Masjid Nuur anoo loo xweysata dibadna way aftar odayga uu soo noqday hargeysaan nimi macaad noo dhow xaafad waxaan ku jirnay Sheekh Madar dusheeda Sheekh Albeledka dusheeda ku jirnay dabadna macaad noo dhow jiray oo Xasan baan galay haddana waan ka wareego waxa baaday hijaad alhijaa marka hijaadna baraawiye falaaxi iyo macallin Yunis ayaa dhigi jiray Yunis iyo macallin Curyaan ninkii waxay ku jireen halkan mashaariic weyn haybaka daaradiisa waxaan jirtay sekadleer ولو شيء سكت الليرة نكيل ذلك سوق قرنا سكت الليرة واحد سيد ثاني واحد سيد ثاني بدنا عريان يوم على يسوع سكت شرين يوم مخحيب بدنا عكاسو على واحد ثاني واحد ثاني وشيء واحد ثاني ثاني واحد ثاني انت حاجه انت حاجه نقولين dambe bari dambe halkaas ka bilaa malcaamada iskuulkii dawca waxaan galay biyad ayga hoose oo bariga waxa lagu gali jiray imtixaan quraan laga qaadayo kootaduna aad buu yaray marka hadda mar weedo sanadka dambe weeyay marka waan garanayaa anigu iga go'ay bidiga yaraaba helay kiima ka qaataan ku galay anigu marka halkaas ka galay biyad ayga hoose dabadna waxaan galay kii saraan galay dabadna waxaan galay tiginkan institute kan galay dabadna waan dhoofay iskuulkan farsamada gacanta dabadna waan dhoofay waxaan tagay Saudi Arabia imisa dhibaad waqtigaasi qiyaastii adigu markaa aan dhoofay 1979 baa meelahaas 79 dabadna marka xagga aan tagay tacliintii waa sii laakiin tacliinteedii waan wareejiyay waxaan u wareejiyay xagga xisaabaadka marka waxaan la xiriiray ku taala Ingiriiska oo leeyahay British Career College la yiraahdo oo ku taala Chelsea marka waxaan ka diyaar galiyay shahaadada xisaabaadka 2001kii markii aan ku jirnaa la ku jirnaa golaha wakiilada waxaan aasaasnay jaamacadda markaa la unkaayo annaga iyo Maxamed Barkhad Miganay oo isla macallinka ahaa xildhibaan ahaa ayaa aasaasnay kulliyadii sharciga faculty of law oo nili war sharci baan baranaynaa sharciga barta aan inaguna kulliyada aan aasaasno meeshan aan galno waan garay Cabdiqaadir Jalan wuxuu naga caawiyay xagga waraaqaha oo UND ba fangaraysay sababtoo bariga gobolka kale lacag bay qaadan jireen saddex xubin qaadan jireen marka aan ka soo noqdo Saudi Arabia marka ku jira jaamacadda Hargeysa ayaa la magacaabay madaxweyne ku-xigeenka laakiin waxa ka soo noqday Saudi Arabia waxaan u shaqeeyay waxa ka shaqeeyay 5 sanadood oo xiriira waxaan u shaqeyn jiray baasha leeyahay اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون والاقتصاد أما United States of America and Saudi Arabian Joint Commission commission ka iska caawinaya dhaqaalaha iyo khibrad iska caawinaya baan u shaqeyn jirnay dabcan support ku xasin jiray shirkado waaweyn wax kamid ah Albilad Fanil شو waxaan la bilaabay Albilad Fanil marka u shaqeynaysa lajnadaas oo support service ka u shaqeynaysay in badan baan ka shaqeeyay muqaynta taqriiban 6 sanadood waxaan ku bilaabay work coordinator ninka shaqada isku xira dabadna waan ka dalacay support supervisor baan noqday support supervisor baan noqday qayb ana ka shaqeynaya shirkada soo dhamaatay oo kasaalkii laga qaaday mid la yiraahdo NASMA National Engineering and Marketing ayaa la wareegtay kontraadkii ay waxyaabaha cajiibka ah ee aan ku xasuusto waqtigaas ninkii u dambeeyay ee shirkadda haysan jiray Albilad Fanil على Jack Group وهاني كورنيل متقاعدة oo ka fadhiistay ciidamada Ingiriiska fadhiistay yaa maamuliyay kabeligaas dabadna waxa cajiib igu noqday ninkii la wareegay oo Soomaalikan ahaa shirkadda dambe NASMA loo jeedo waxaan Joe Travis ayaa iyaaray labadii dadka beelaha kala kaltisanaya شو wuxuu yiri bal ii recommend garee koob iyo tobanka madax ee kabeniga cid aan kala xiriiro oo aan qaato dabadna in noqdo furihii shaqada noqdo dee wax ka shaqeynayay Albilad Fanil wax ka shaqeynayay dee 200 qof ninkaas oo cajiib u ahay kaliya soo qoray ninkii baa iimi wiilasha ninkii kabeniga dambe NASMA aan qaatay
wuxuu yaabo wuxuu waxaan ku weydiiyey su'aal baan ku weydiiyey ruuyo jawaab buu yiri ninkan ma business baa udaleedin buu yiri ninkan ku soo doortay haye business baa udaleedin soo kuma soo jack group مثلا نكاس مالين شيء شاي مكبنا ودعبين هي شغله مويانه واحد برايفت ودنا قد حي اي محاجره دي لح بقولو قفو ادي كاسو قرا هي وحسن يخلو قرن مايه ملا شقدا ku wanaagsanay subaxii markaan soo kala laho waxaan soo shaam kan soo reejirey salaad waxaan ku jiray waan ku weynay meesh u dhow tabandeela markaan mistay shaqadan geli jiray shantii bakashan 5:30 anoo kaliya isna so 6 o'clock in the morning ayuu iman jiray haye waxaan moon lahayn isma dhaaf jirin iyo markuu waxay tirayo action waxay yaqaan nuur axmed siyaasi nuur yaqaan nuur action waxa ka garan maayna kaaso tamala intaasoo shaqada aan ay jeclaystay bas mana waan la dhamaynay another 6 years ago 12 years baan abada ka bani oo la shaqeynayay la jirta ayaan waan la dhamaynay waxaan ku wareegay la jirta lafteedii aan xagga transportation-ka aan galay dabadna waxaan naawilay markaas inaan baxo oon taantiisi wata marka qabto haye dabadna waqtimeed intaasi marka waxay ahayd by 1990 by 1989 مثلا 1989 by 1989 1989 ayay ahayd marka 90 ka barigan la shada oo galnay dadna waxaan u sii galayay de waa yiraahdo fiisada sahala dabadna marka la soo shaqeynayay iyo wadankii baa soo galay wadankii ayaa la soo galay wadankeena maanta aynu horsanayno ayaa la soo galay dadna waxa la yiri in dad yaro afraad wadankii yimi abahana uu yimi wadankii waa burbursan yahay abahana uu xamsanaya abahana marka ana hoosan ka xidhanayaayo ciidan ma sheegay taas ninka uu ka shaqeeyay meesha la shadiyo walaal maxamed nuur saxiibka kasayna marka baxayo wax diyaar gasanayo uma sheegin wax ka soo hormartayba xanuunkii abaha dabadna waxaan siiyay shimbir salma dhex ku dilo odagina u tago lacagtan u geeyo guriga ku dhisanayay ha kula soo duceeyo dabadna adiguna marka xaas baan la carub baan la ku jirta iskuulada ku jirta Saudi Arabia riyaad ku jira waan imaan ana imi waa 92 February 19 haye February kan imi haye odaygan oo ka iskala bano imi waxa cajiib ahayd 1988 kimankii Saudi galku waan joogo fasan ku imi haye markii madaxweynaha la dhacay haye oo waxa ku joog jiray laba bilood oo xawada waxa oo recording waa meesha ku jiray haye markii aan ku soo noqday 1992 February meeshii oo habaan masuura haye waxa dhulka yaalaan odayga aabahayo ku dhex jira kajinkii saaray laba saaray laba jigalood dadna waxa aabo kaas nado ku lacagtii labada guri inta reserve hayso waan tagayaa waxaan marka ma ku socdaa fiisadii baan imka diyaar gashanayay tii soo ducee intuu qosay uu yiri idhigiisu hadda meeshaas waa dekan haye halkan baad ku qorantay uu haye wadka u shaqayso wadankan aad u shaqayso haye wax wada hayso dhig buu haye marka la gaadhay 93 January you have to resign buu haye it's come back halkan aad timaada wadanka wadka u shaqayso haye amar hadda wuxuu fadhiyaa meel cidla ah وكا كتشينكي يو لو شيء صاري يلا هي أبي كانوا أنا أبي أبا يرجع هو أب وكتي وانا والله بسين والله بستيبلود ستيبلود بسين والله أنا تيم فولي أنا كيم فولي تبع بريه ودسي مال بخارنا ويكريه وكشقايو تبعنا وان إيمي وحنا محاط سميسا دي واحد ما شاء الله بيوا يسوق النول باتمد ما يسوق دنتي يسوق دنتي يعني تلنا واحد سوق هذا حاجة بلي ماتيريالس قلب كان اسمها سين دي فصار وان سود دقي خاكي فري دبنا حلقة سان marka waqtigan imi meesh halkaas ah waayahay marka hal sidee hadii biimaad ku gashay baarlamaanka markii waxaan sameeynay horta shirkiiba markaa Saudi boorame yaa Saudi anaga sabir shirkii baa laga yimi dabadna anagu xogaa baan shaqada dubaaro xooga fisa ayaan qolay karo jaamacada aan iskaashanay anaga ka wada wadnay dabadna shirkii 1997 وقتها كان دلو قبطي أكيسا وقتها قال لي كلها وكيلة يعني كل واحد كل شيء تلقاه محمد صعبانة
محمد موسى عوار oo uu shaqeeyay raada qaybta aafada iska dalado nirad garanaysa dadna kaasa mardaba lagu celiyay ciyaal baa ka dhigay wasiir ciyaal baa ka dhigay wasiir isagoo markaa baarlamaanka ku jira dadna ana la yeeray oo markaa isku jifaada haydeen waxaan wadaago afar jifo markaa ana la yeeray markaa dadna saasan ku soo galay baarlamaanka oo booskiisii baad buuxisay haddaba waxyaabaha lagu xasuusto golihii 97 inuu inaan galo adoo soo koobaya 97 ota waxa golihii 93 wuxuu ku burburay waxa isku qabtay dastuurka dastuurka ayaa isku qabtay oo yalla wuxuu keenay Suudaan qabiilo dastuurka format gareeya oo dhisa golihii mid bay samaystay oo isku qabtay iyo sayay gibay shirkii yimaadeen shirkii baa labadii laga qaaday gudda loo saaray kursi ba soo timay rag baa loo sameeyay waa isku dibariday soo baa laga sameeyay kumeel gaara ayaa laga sameeyay dabadna kaasaan ku shaqeynay oo ahayd in la kaabo within 3 years dib loo kaabo kaabistii ayaa la galay wata laba dhadco halkaa ka yimi labadaba golku ku guuleystay cigaalntii eerkii wuu iscasilay waa laga diiday 99 ka dabeeqadiisina waxa lagu qaaday beach mudo waa laga riday labada waxaan filayaa in waxay arintee wadanka lagu soo duulay un baahdo wadka la curiyaamiyo golahaas waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee uu ku talaabsay waxay ahayd wata dastuurkii kaabistiisii oo hawl yarayn waa la galay oo dabcan waxa laga leeyahay labada gole oo dastuurku wuxuu maraya labada gole uu maraya golahaas uu ku guuleystay in dastuurkii kaabo inkastoo oo cigaal soo dhigay isagoo 99 saaska qodob soo dhigay golihii labada gole guurtii iyo wakiilo markii la soo geeyay gudidoodii waxay soo dhigeen mid 110 kaasa loo codeeyay oo golada golis ugu codeynayaan garanaysa adigu waxaan naga jabay 20 qodob baan naga jabay oo dib ugu sidii hoosay ugu noqday golaas kale wuxuu ku guuleystay inuu sameeyo xeerkii doorashooyinka xeerkii waxa dastuurkiiba waxa loo bandhigay shacabka kiiba loo bandhigay golahaas iyo guurtiiba waxa ay ka shaqeynayay goboladii degmooyinka si uu u hirgalo dadka cod la weydiiyay war waxaan raalli ma ka tiin dadana waxa ragii ka qayb galay ka howlgalay xeebta ilaa lagu hayay ilaa baxar aagan ka howlgalay oo dadka loo bandhigay in u codayaan oo loo sharxayay qadeedu waxay tahay ma yaa loo qorsheeyay marka taada waa ku guuleystay wax kale lagu guuleystay in la sameeyo xeerkii axsaabta wax kale lagu guuleystay in la sameeyo xeerkii gudoomiyaha madaxweynaha iyo deegaanka iyo baarlamaanka taana waa lagu guuleystay oo waa la hirgeliyay golahaas waxa isleeyahay golaha iyo kii guud waxay ahaayeen golo sacrifice ku shaqeynayay yani naftooda horeeyaan sababtoo ah 30 baa ku bilowday 30 ku bilowday shahra 30 maanta waa $5 weeyay maanta $100 buu ahaa waxaan xafiis u ahaa golaha wakiilada maxkamadda sare ayay 6 lahaayeen 6 maxkamadda ku shaqeynaysay marka waxaan filayaa inuu ahaa golo ku shaqeeyo sacrifice waa yahay sida iminka uu dhaqanku yahay haliyay waxaynu maaragtay badankeenu marka madaxa la noqdo xukunka la iska qaado dibadda loo cararaa ama haddii biidmaayo baasaboorro kale hoosta lagu wada haystaa dibadda la iska degaa iyaga iyo qoysaskoodu laakiinse adoo waxaad goosatay inaad waddankaagii iska deganaato ummadaadii iska dhex marto makhaayadaha iska fadhiisato restaurantka iska fadhiisato masaajidka aad iska tagto marka maxaad ku mutaysatay taa haddii biidmaayo wanaaga horta marka waa fadliga ilaahay fadlu min allah waxaan ilaahay aanu qorina ma qormayaan laakiin wax ku ducaystay ilaahay marka shaqada ka tago madaxtinimada aan dadkayga ayaan ka dadbin wadankayga aan dhex socdo ilaahay uu aqbalay ninkuna hadduu soo maro qurbe uu garay qurbe wuxuu yahay ninkii aan tigi baan garanay qurbe soo maray oo yiri meel boo soo arkay meel ka dhantaabdi ma jirto kaliya ma aha waa fadl ilaahay weey ilaahay aad ducadu u aqbalay mid kale kaliya ma hadii kii madaxweyne ka horeeyay Cabdiraxmaan Cali waa uu jooga xasan ciise waa jooga waana ku faanaynaa in waddanka dhex joogno anagoo nabada ilaahayna han ugu wado haliyay ama madaxweyne ku xigeen warkutaalada ugu weyn maanta shacabkeennii haysataa waxa weeye in hantidii qaranka iyo wixii la wada lahaa iyo dantii guud
hortooda lagu qaadanayo oo lagu baabi'inayo oo aan laga xishoonayn iyagii oo indhaha maaragtay iyaguna maaragtay wax indha qabsiya hortooda lagu samaynayo sideed arrintaa u aragtaa ininku sideed uga badbaadeen inaad waxaa iska ilaalisaan horta waa su'aal fiican kow madaxweyne ku-xigeen hantooda waa la diiwaan geliya intaana shaqadaba qaban baa la diiwaan geliya dee rikoorkina maxkamaddu yaalla maxkamaddina rikoor ku yaalla haddii rikoorka la baadho 2003 bishii saddexaad maaris saddexdeedii 2003 haddii la baadho markaas waxaa laga helaya rikoorkii hantidii guutada ahayd rikoor gelinay horta haddii markuu madaxweyne ka tagay xilka tagay la oranayo intaas haysteen maxaa idin kordhay dee waxa xisaab xil balle oo la soo faqaayo xisaab xil balle waxa ma dhaceen ba waxaan ba ما يدعين ما قرنا يقولون يمكن قد مسائل إلى الدول قليل والله قصد إلى الدول قليل وقصد بويه هذا بقى ورتوي في عنا هاي إن تدخل الله يصاب تمام ما يحيينا هذا ما يحيينا هذا بس إحنا لا أمانوي أي هذا تدي وديسو ودي ما تروح عليه صوب بدتي سيرو بدبادي أرتا كيجي بدبادي وعاله خوفنا وين يا شايقين رسمية وإحنا تأمنت هاي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحاولنا نسوي كان نموذج هو يعني إليه من هذول كنت هاو قرنا أيوة إحنا الأمانة هاي كنت دقي ما يقول أنا هذا اللي بدي يسوي حرق يسوي شو جاي ميركي يقول مدة ده رواتش عير ويدي حتى يقول يحمل بروبك ودي صوت ثاني ويدي يقول يحمل بروبك ودي أنا حرق يسوي كماير كمقالة ده حرق يسوي أنا أبيه بيجي بحال بلوغ 1984 وحكي بي عقوين أبيه وكقول مقعيقة 1984 أنا بتدينا برجي أنا السوق عليه ودك السوق عليه أي باباضي أو تكديك باباضي بس أجلس تصل يتريه وحب دولا لسمنا 1982 أي عند سيلاب الجروية أو كل شيء شباب فيها لشباب بدنا النية من قبيلة بس كيسيدو قبيلة كيسيدو قبيلة هي كان واحد كش ولا شيء أبو هاي سوى 1946 ودن كي يا رجل شغل جوري وكتجي لما جوري من الله مقصنا يكتجي أوكي بس كده عندنا كوسي ولو تردها بربلا أوسي بلي أنا بيرجع أن ككوري عبد الله يا إن بدل هاوني وحواني هالحق هذا مثل شخصين إما وكد ديده مسؤول بس إيميل مسؤول يعني حكاسين وأنديده ما كده ما يروح حكاسين بور ما كان كوب برنا بور سيدو كيف سيدو وبناية سيدو بناية وحتى دير بالها وأنت مدحوينك حقين كهاد أنت مدحوين كها يكذب لكن أنا حدي دير كل كلابارو حق الساعة شيء كل شيء يعني مالي 2015 كي أي تجي بربراء لكن حنا مثلا وحنا أقول قال كانوا هي أمان قال كانوا أمانية وهذا وضو هاي الحقوق هي بربراء قال بسهولة لا الله رأيه سورة هاي وحفرية لما اللي تحوي تعليمي توتك هي ولا دورة يعمل الحس عطا وحنا يمكن مودي العالم يحدون عبد شكوى من سنة يا بلور هي ولا يابي ومركز هسيق اللي كمان قادم يدي حق فاسم هي لو قادم يدي وبيلدي على ينبع هي إني كانوا حلا حق قادم هي بدأت حالي في حسنين بقى إني واحد أمانية إني واحد أماني قال لك أنا وقرن كوي بيجوا هالكيس مثلا بدي أقول لي حرب أنا سيء يعني كتشبنه هي أنت أجل كان تجن هاي تحرك كي أنا بدي أقول باسكريين أيا نسي مكان هدي أنا واحد الصي for the last 16 years شكلها 1984 أبهي أن بيجوا أنا درس صوتي لكن لسه يصير بقارو كلكم شيء حال كل لسه والله عاد العجب هو كان وصل صدق بقارو يوم تعلم مركم من حلو كتبوا يعني شغله وحلا سيا حلو يبي قاري وأقول أنا قاعد هي يبيني سكول ولا يستعي كان أنا جاي بس يقلق قلق لما ده صدق بقار بالجوال 1984 صار غير إكسني سانس قد حيو في عروض لكن واحد خلاص مش أنا ما شاء أن ليتري هذه بري الحساب تمنا ده واحد نقول دونا إن شاء الله رجل سيم نوبك نسيه يتري
إن شاء الله وايا حساب يدي إلهي نو حساب وأنا كوجو حسينيا تا maxay kula tahay hal hadii biin maayo inaad اعترافkeeni hor taagan yahay muddo imika 26 sanadood ba ka soo wareegtay dadkii hadii biin maayo dadkii maaragtay qalbigoodu uu ruuxan yahay maxay kula tahay hadii biin maayo carqalad ama mid ama laba adoo soo koobaya nooga sheeg horta mushkilada waxa waxa weeye cidii aan hadli lahayn Soomaaliya Soomaaliya iyadoo ka taalo oo yaatay 6 madax 6 madax waxay Soomaaliya Soomaaliland ku xumeeyo iyo xumaatay horta waxa maamul goboleed madaxweynaha loo baahnay horta waxa Soomaaliland ku xumeeyo Puntland sameeyay Jubbaland sameeyay horta iyo xumaatay horta marka hore deyn loo wada Soomaaliya iyo Soomaaliland ilaa waxa ay dawladdu siiyeen tii ma dhawa hadaba arrin inigu yaala arrin horta waa in barnaamij loo sameeyaa qaabka ixtiraafka loo doonayo barnaamij sugan oo kharashkiisa leh wala sameeyaa midka wala sameeyaa waxa la yiraahdo ambassadors wareega adigu qorshe dhan oo wada socda kaamil ah oo lagu hawlgalo waa in la garaaca albaab walbana waa in la garaaca waxay lahayn وإلا فايش يلي UN كبركي يعني 1960 لا اعترافي تيري فافين اعتراف فوال صفقة والله يصل قبصة ودتك الله الله يصل القبصة لكن حوالي تزوح بانتي الحوق اللي هنا سويس هذه أنا قبل يجابا وارين سويس وروناكسن وحا ما ركت مهندا أينك تجي كرينين قرحي كوكو قبصة مدحتوية ده nimankan inoo cadawga hadii biin maayo ay qorsheeyeen bal isaga iga waran sidaad uga badbaadeen iyo hadii biin maayo goortu inagu dhacay iyo wixii uu mahadhay inagu reebay horta waa in yaro shako dheer noqon saay laakiin soo koobay aad soo koob waqtigu inagu kooban yahay arrinkaas wuxuu dhacay markii diiwaangelinta la waday 2008 kii uu dhacay anigu waxaan u baxay bari waxaan istaagay every politician si aan dadka ugu dhiirigeliyo inay qaataan kaarka diiwaangelinta bari baan soo dhameeyay markaan bari soo dhameeyay ayaa haddana berbek soo noqdo xeebal maray sidaa ka soo wareegay xaggan baan ka soo baxayo bilaahi bomba ka soo dhacay qoljeeb bomba ka soo dhacay soo mari xariirad labadii qaraxi cisho ka hor baa boorayay labadii baan in waxa uu dhacay arrin mucjiso oo aan wali ka sheekay markaan saa u dhiga shandada u dhigay dhulka inna ninkii garanaya 1990 sayrankii ka dhacay ma garanaysa meesha la yiraahdo Sacuudiga markii cilaaq qaraacay waxay bahal qayliyo li rushiray in baka la saaro calaamad oo hindi gartay wax dhacayaan dareen baa ku galay badima ma ka sabada la saaray gurigan maxkamada markaa boorigana diyaar ma lahayn ciidankii ayaa heen kii boorgaarka amka dawladda baa heen galiyay casarkii gaari bay maamshi martuuya ciidanku way qabteen xaga martuuga way qabteen dabadna waxay maxad u sameeyay waxaan journalisto waxaan doonaynaa waxaan wax badan lagu sheegay anigu markaa waxay ku qafilmay وعيل برد على أركي كتاعنا الأسبوع هي الله يحفظك خلاف بيراتك خلافاتك لما الصبح في شنتي ما عفرتي ما كعي وعك عسكري يجي من قبالة سارين تماسكري بحنقلت بكي من ساق قال أيه وحيول يمي صدق قالوا سوري وكوي بدوابينته واقع حي بكي ما جي وحنا خلك على البحي مكان بالله ما كلنا هاي باش نديك تقلباتك كلنا هي قبيله سأل كانوا أقول هذا مكان برجع وحى أي وصعت الدستور كي قاعد اللي كرسي هذا الله بقى بدك يسوق بالقبيله وكان واحد يعدون مرجع بهذا مرجع بهذا يسوق بالقبيله دبنا واحد الله الله ورعضوا بكها مركيكا يبحث هذا وها حويه وحي بالباشا سيقا قبيله هلكا كان وتدي قرية سورية waxaan badana waxaan ka soo baxay baki gaari qabarka waxa uu xumaado ay baaburkii bliiska bodyguard kula socdeen uu xumaado kan ay soo baxay iyo laba askari iyo idil dalwalkii aamul markaan soo galnay waa meel beeraleeya oo waa dilba taayir gaari martii ku socdo hadda 80 ayaa gaariga soo galay markuu intaa soo jiro uu deena geliyo ku socdo 80 ee baa waxa uu caawan jiro gaariga farid ku driver ee gaariga soo saaray moosay soo isaga booday باقي حنور أفسي حول عجيبة. مركا واقعي ما أنت وراك يمين. مركي أنا دب أورا يسوي سجوي. هاي. بورا ما نيمي، تريس ما نيمي،
alaanku isaarey haye alaanki haye isaarey madaxa haye habeenkii dib ma seexan haye كيس بان إقسام بلابي أسمادي هي ذكر إلهي يعني بلابي واللي خفيفية الصبح حبيت كده بلمس حنا ذبح بكي صارن شو حال اللي دعيه أو وضو ورمض هي وكبح هي بقى لي بتشريدي من مرين الم حانيا سحل بها يعني ما سحل بها بيني وصبح كبح سنتي ما كنت لا مرايو أي ما بالبليق اللي حيو كلهم بحمو حاجة حوتك حاجة وتشالي أجاش البحر وكان سوى بحي وضدي يبقى يقوى بالكي كسر علامة أماكن قليدي هاي عصر كعيان كلها هاي إلى لكل مو باشا يقلده بقى مركان الله الله كلا بيك صنعضي بيك ساري وضدي كسر دعضي بيك صنعضي هاي والله ما مسلمي بيك ساري يدلون المساحن والله هذا الله يسامحون هاي صبح يوم حكى الحي قبيلة لما هذا لو حنين كان سد حبينا صيحنا بل بيسعرني سد حبينا ذكر بودو تبنا وددي توكي من تجيني تصوص ما بحي الله يبضي مركب ذاك بحينا بكل وحرة وهو ريجي فرو وين أساسا هو ريجي تبنا بالكبدلي يكوي عصر عصر كي يعني وصيحنا يا باكي بحبها في شيء صبح ما الله هذا هيب بالكبدلي تبنا كب بحي سلح عليه أساسا مري سبب وناك برحك كوريجي وحكوين عادلي أنت وحظلية ودقيت يا والله على اللي بقى صبح الله الله يجسيه الريح لمن حوك فرحنا حوك يفهم الصديق هذه وسيلة فهم الصديق صبح الله هذا اللي على اللي عقد الحوش شاقني وعصر عشرته شرته يكسر على ما كان إيمي حرص واحد كسر على عافية ما كان على سوق ليني وشذا الموت كورده وكره الله به كورده وحاسوسنا هاي قاري حلو هاي خدم حي عكولة ويقول وريالة أو وطن جدا بي كان سوبر كاين تضم به هذا الجورد نقول لك بدنا واحد كده على اللي حكوا وريانو وطلع حكى دعين هذا عدا ممكن اللي عدا هذه كان صحناي صحيح والله الله وحن كده جرته وما كان عدمان مرين كده عاي مدارة بعد بكو ساري هي بهالك الله هي ساري عشان مركا هرمية دوارك جرتي هاي وحنا مركشين ومعجزة هي تبنا دعبرو باني بدعبرو بان كبلا بخطط مرك وطوانكي أو الله سبحانه وتعالى مكان صوحة لكي يأتي عندما ذا يصير صعبة يعني محمد ولا قرحية ويجي معتويدي هي دكتو كوسار حديث سار هي ما صار مدحون منولي شوها سنخذ سكوت هي حدنا أفضل فاعل زود ولا الله الله هي تلفون لي ديبي هي ونص ذاك بيحسون شو اسمه له يا استوى كم اسمه له نرسو جدا أيا إلى أحمد وكاري وكل عاي حفيز كاجي ويحيد شو له ودنته هي حفيز كاجي لفتيسي يقول عقارو هي ما يحسن توجي ماشي بس أنا كل واحد هذا عرض وحبار دعي وانتقي سدعية مركب حبا سكر كراعي أنا مسوق لي سوق لي بقول هي شوك مش صافي ما بقول تبي نروح أول حلقة شلالو ممكن نروحها شلالو وحوي هالكم بيرها بيرها وممكن نروحها هاي إن هاستك سو وقوي هرجيسة كسو قالوا أوديان لكن دق معه واي أحكي سوري أي قشوها شيء لك قضية ممكن شهادة أنا سعوان قراعي حتى حكينتي هي عبد السيد حكينت هذه هي قراعي مسؤول شو بورني الحمد لله نبى هروة قاعد هروة حكيناها كلها هروة لكن قضية أنا سوقي حلا بروح أنا قاعد بس يقولون يو تقارو كل حفيز كيني أنا مش وفدي يقول مركا شوب بو دول كوهي شوب ويقول أولي يحس يعيا يا صوق علي مركا فريستان قلتينا مركا سايق بس يوعي يقدم بيسي تروح على كل أول ثلاثة ما تهاجن أي ماركة مركا هذا أن وحاطو أنا اللوي أيوها مركا وحين وقعدن كرنا إن هدي بين ما يو إلهي معجزة كتوسايي أما أي حيث بقى إن دعيان صحن صحن أو صار كذا خسارة ويرى ها دي اللي بتهيأ إنه برنامج قبل يسيجونا إن كورن ملاقيا بقى إما كلولن كان حوجنا السعودة مياد كقيب كشيء سياسة أنا أقول هذا حسكوت أنا عبد الرحمن علي وحنا حسن عسي وحنا استنبات
mustaqbalka qaranka ayaan oo haddii wax yimaadaan baa way helaa cid dhex gasha haye wax soo dhici karaan waa run haddii la kala raaco cid bal waayo cid dhexaad la waayo soo balay ma cidna raacin okay waxa iyaduna mahad weyn la hadii biin maayo imakay nagu cusub oo taariikhdan maaragtay dawladda Siiraan ay ku soo gabagabeynaysaa waxa barnaamij in badan laga shaqeynayo wada hadalladii Khaatumi iyo Somaliland inay guul ku soo dhamaadeen oo wiigii hore oo la kala saxeexday maaragtay heshiiskii arrintaas oo markaa dad badan ka hawlgaleen oo labada dhinacba sideed u aragtaa iyada arrintaasi arrinkaas uu wada tashkiil fiican yahay waana ku bogaadinaya waxa ka soo baxay in la furo dastuurka taas waa ka taabanayaan in la wada hadlo wixii uu leeyahay si fiican loo wada maamusho waa mid ku jirta weeye waana taana waana ku bogaadinaya waana marka la leeyahay dastuurka hal la furo maxaa loo jeedaa anigu markaan geeska eegay wada fursa dastuurka ka inta waramo fursa foorka saddex qolada soo jeedin karta madaxweynuhu markuu tashado golaha wasiirada soo jeedin kara golaha wakiiladuna saddex dalool way soo jeedin karaan guurteeda saddex dalool way soo jeedin karaan laakiin waa inuu sababeysnaada furitaankani markaa ma wax laga bedelaabaa hadday kaadi xakama maaha la kaabo weeye waan u baahan yahay 20 qodob horna way jabeen 20 qodob horena way jabeen oo imika waxaan imika nahay islaam qaybsiga waa khalad u sameeyay gol bergaas sababtoo ah 82 lagu qoray storka ee loo caqabad beriga ciyaaro ku jeediyaan in lagu qorin xeer lagu qoro wadada xeerka lagu doodo oo laga wada hadlo wixii kordhayay hadaba furistu ma sahlana markay soo jeediyaan intaas oo qole labada gol waxa ka doodayaan lablood أبلغ الكتودية تبدو إنه جولها وكيلاد يكون مال مريا أبسط بجورتي عفرت عليه كوري حل إلا قالوا هذه انتهى الولاية سنة دبادة دورية أوكي فلوسي يعني كابستيسي سنة دمبي يا دورية لكن إمك هذه أتهال أنت معنا واحد قلت لها أنا كاس أون لجوك قرفين تبدو يعني كذي كل ياش أرن الغرفيو أي كايو غير خاتم مركن اللين هلا فرو maxaa cindigooda ku jira dadka may dabalka kama qaadin laakiin anigu danigayga waa wadani ma waxaan isleeyahay waxay ka hadlayaan laba madaxweyne ku xigeen wadanigayga bas in badan ma ku jira siyaasadda iyo arrinka saami qaybsiga kuraasta marka doo arrin haddaan dibadda aan lagu dhamaynin iyadoo ku jiraan labada gole runta arkaan doonta waayahay imika waxaad tahay xubin ka mida guurtida oo nidaamkeenu uu sheegaya oo maaragtay marka aad ka soo baxdo maaragtay madaxtooyada guurtida iyada xaalkeedii ka waran imika dad badan baa imika dhalinyaro badan baa waxay rumaysan yihiin in guurtidii waqtigeedii maaragtay uu dhaafay in haddii biilmaayo odayaashii wax kala goyn jiray ay meesha ka baxeen in kharash aad iyo aad u badani maaragtay uu ku baxo iyadoo loo baahayay shaqo abuur in dhallinyaradii loogu sameeyo iyadoo maanta haddii biilmaayo aynu dowladnimadii u bislaanay oo wixii carqalada ee jira dee goluhu wasiiradu haddii biilmaayo u xilsaaran yihiin baarlamaankiina u xilsaaran yihiin madax dhaqameedadiina dee imika hawl kaleba ayna lahayn marka miyay kula tahay in arrintaa guurtida haddii biilmaayo dib loo eego wuxuu jeedaa meel laga saaro arrinkaasu horta golaha guurtida waa golada Victoria waa golada Victoria lamida waxa isku baarlamaan wakiilaya guurtida qasay laakiin waa baarlamaan golaha waxa la sameeyay 1989 midowey in uu wada soo gelin ayay khilaafaadka aslam tadxiis ayaa too lagu bilaabay horta golahanu waa la dhabarta wadanka دفندونس والله في دبرته وطنك كو وحا كلو أو لما تويا وقولها كليه كم غضان بيلهردن بيلهردن هل كان ما تقولها وكيل هذا دوشنا اسمه قونيه هل كان بيله يردن كم غضان وأنا أقول الدستورية وأنا أقول له بهاي هاي إنه تشرو أنت سبحان الله اعتراف لي زوان أتهابن مدة كله شروع وين مرتها بكرة المالية وتشيك أم بالانس
sharciga ka yimaada madaxweynaha waxaa kala yimaada guurta u yimaada wala isku celceliye dadna waxaa soo baxa wax hufan kow marka intaasoo laga gudbo golaha guurtidii waa wuxuu noqdaa maxkamad marka madaxweynaha laga xayuubinayo ixsaanada haddii dambi dhaco waqtiyadu waxay leeyihiin soo jeedin bay leeyihiin laakiin cidda ka xayuubinaysa ixsaanada madaxweynaha waa golaha guurtida oo si rogaya maxkamadda maca شركة واحد قصنا يا محكمة يا قصنا محكمة سنة لبي سنتك حل معنا ودودية مركوا هو تو تير من حين لقى قاعدة محدين هذا لقى قاعدة مركوا قواها أنسلاها هاي وقولها حدي وحول ببر ببران كذا مركا مية كلها تيمك هدي بين ما يقول السنة ترى كلا السماية سيدا ما ركتي ودمدا كلا ما ركتي قوله كير أو ما ركتي كفضود oo baarlamaankana ka sareeya miyay kula tahay in la sameeyo way iman doontaa marka wadka la xiraaqo iman doontaa oo xeerarkii beriga la sameeyay waxa ku jiray in laga dhigo ciyaaro soo jeeday 60 kaliya soo lagu qoro 60 ay ku jirtay taas way iman laakiin waxa leeyahay golahan la taawanin inta uu raanta ala ictiraafin waayahay halyay waxa ma aragtay aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena laba su'aalood bal ka waran barnaamijkan imika muddo aan ka hadlaynay bara oo ku dayo oo ku soo baxday oo aynu ma aragtay discussion ka wada wadnay sidee bilmetal baad u aragtaa hadii biin maayo waxa arkaa hadii qoladina wada u dhabar adeegtaan waxaan filayaa aakhirka waxa bixin doontaan hay'adii wada noqon doontaan oo bixiyaan mobile price ka bixiya oo hadii loo safray weeyeen waana insha Allah waa dhiirigelinayo jiilka soo socda anu waan si soconaay jiilka soo socda waa dhiirigelin weeyaan laakiin waa waxa rajinayaan cid wax qabatay oo wixii ay muuqdeen way noqdaa oo aad u kala faagaysan waxa soo saaraysan aniguna waan ku mahadnaqayaa وطبعاً كان كوران واركين بحقول ما سعون إلا ما تيجي على اسكو هاللي مويان هذا سعودي كي يشاركوا حدنا أي بدي يجوا رئيسي أتيني كان يجلا هولقل تروح الله الهاي قرب كنا حق الله وحكسوا جبينا يا مركا كويدين يا ودن بيسا ما أنت فرصة قال قاعد هيسطو ضد إنك كداوانا يا نون كلمدي سلا قدريو أو وجهي سلا قدريو أرتهاي محاد الله نساعدت كني ما أنت سحر برد باوريري ويتشهوريرسيهين إن لولن إننا نركي ترينو سياسة باكر أو hablahi inamadii hadii been maay ay music ku ciyaarayaan banaanka habla aynaan wiligeen abi isir aynaan u lahayno baabuur yar yar fuulayso oo inamadu hadii been maayo ay lugaha hayaan oo daaqadii la fuulayo waxyaalo badan baa jira marka maxaad oran lahayd oo ku soo gabagabeyn lahayd horta lagu qodob soo gabagabeynaya tan sicir bararka yar waa qodob bulshada mid ma faraya tan sicir bararka mid baa idin sheegaya ورودن أن عسين شيلين كيس عند عسين ميسو تشيله go all over the world ما دور حقيقي هذا تكتئني كوضمود هذا تكتئ إنجليزك تدور حقيقي الماي سو إنجليز كي أمريكان سو يشبوتي ده بقيمة ده يزو سو إنجليز كي بركة اسمه دوغا أمريكا ده يوسف ده دولار إنجليز حوالي دير باوند بانك سفر بلي سفر بلي بدو شيء أو كدولاية ترانس كإيربورت كدوب أنا بومباي كدولاية إسكوب كافي $1 معنا بنك صرف وعسينا هي شيل كودا كوير يكوين وعسينا هي قلت مع عسينين كو ساكن مرة ما نايو ده ساكن يمكن حل قدريو العكسين ساكن وضع العكتين ساكن تعمل قلت مكوري وحيدا عسينين العكتين مدك عليه سعر برر إنه كهاد دقوها في الأبد كان إلا الصوص صارت واحد عنيس إلا الصوص واحد عنيس وتلدروني قاعد الصوص صارت وضع الآن الله هاي ليش تمجروا بيها الحرنا حبيرنا تو حكومة ما دانا هسكد يسوين يسوي هاي سبعة كسوي هاي العكس عليه تسوق عليه صوص رفاعي يخرج كده يقص الميزانية دي بانك أنا خلص يعود كشغيني بانك أنا أعود كشغيني بانك رباه يود قرنسة بانك هذا حكوا سوق واي هاي
waxa aan maaragtay kusoo gabagabeynaynaa anagoo mar kale kule madaxweyne ku-xigeen haliyey mudane axmed yuusuf yaasiin aad iyo aad baad u mahadsantay waqtiga aadna siisay ee qaaliga ah haddii biin maayo iyo maaragtay soo dhaweynta dhammayska tiraneed gurigaagii nagu siisay waxaanaanu rajaynaynaa haddii biin maayo da-yarta ku daawanaysa inay maaragtay waxyaalo badan haddii biin maayo ay kaa dhuuxi doonaan hadalkaaga oo ay kala bixi doonaan muhiimadda barnaamijkuna waa kaa inaad maaragtay haddii biin maayo aad qalinka iyo buugga aad maaragtay mas-uuliyadda laguu dhiibay ammaano ahayd oo aad iska ilaalinaysay haddii biin maayo inaad waxaad lahayn ood cunin haddii biin maayo ama aad isku taabanin ama mismanagement aadad ku samaynin ayay waxyaalahay kaa dheefi karayaan maaragtay ay ku jiraan haddii biin maayo in waddanka la aamino oo haddii biin maayo dee badaha aan laysku tuurin maaragtay dee 9 bilood lagu wada dhashay oo loo samra haddii biin maayo ayay kala bixi karayaan iyagana guul iyo wanaag baanu rajaynaynaa dee waad mahadsantahay sidaa awgeed baanu kusiin doonaa waan idin mahadnaqayaa sidaa awgeed laakiin waxaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo bulshadeena danta guud ka hormariyo walba danta guud maca dadkan ka tartamaya nin walo tartamaya oo kuska ilaahay qoreba fulaya kala fuli maayo tani walba hal ogaado ninka carraya in ku carraya ammaan aan lahayn haye aqalka hageliyo ammaanada birta inuu ilaahay wadiinayo hadii tan wadiinayo alla wadiinayo ninka tartamaya oo danta guud ka hormariyaan shicibkana waxa leeyahay waxaynu gaadhaynaa halkan doonayno marka xisbiga contributionka adigu bixinayso هذاك أصمر حسبيان بانها مركز في الصومال contribution ده في بشرة بحوي إنك نك مسرع ولا نك مسرحة نك مسرحة أيه إنك واحد أحيانا كعصته يحري كعصته يعيد كستو وحولاتي مادة يحريها لكن هذه تدخل حسب يقول أي مثلا $1 سنة بشي هل تنيك الدنيا صار صارا وظني ماشي له waxaan leeyahay ma dhadhaweyne ilaahay baa soo dhadhaweeyay mid kale mid baan aanu kusoo gabagabeynaya oo very important war shuucigi baan la shaqeynaa shuucigi yaa soo galno tan baan soo dumursigi bakitaabkan ku dhawaan waxaan dhalinyarada aan anigu anfaraya oo iga dayanaya wato way ku deelaan nabiga subhanahu عليه الصلاة والسلام waxaan leeyahay anigu waqtiga farqada badanka quraan baan akhriyaa iyo sayr rasuulka waxba waa ka arkay waxbadan waan ka arkay ninku saddex shay hadii uu dhameystiro wato haduu duca ka qaato waalidkii cidi gaarimayso haduu duca ka qaato waalidkii cidi gaarimayso ko inuu ilaahay taagsi ku xidhaadana cidi gaarimayso inuu ku dayar rasuulkiisana cidi gaarimayso waxa leeyahay deereedina dariiqa mara oo ninka maraykanka timaha xagga ka xiiray kuwa xagga ka xiiray ku dayrinay hada waagan waxa leeyahay dhalinyarada waxa baraysaan dadka waxa baraysaan hadii ay iskuul ku wadaan fadiyal maayo dadku waxa jirku waa jismiyo ruuxda haddaan diintan lagu shubin hawtaada ma hadii gelida ma jisay quraankii ay bartaan iyo diintii gelida waxa bartaan bad tika noloshii la isku inaan ku halaabi maayo haduu diiniyo ismo ma halaabayo waxaan leeyahay ilaahay galabkiina xagga loo dhalinyaro wadankiina aamina kuwa Yurub tagow u soo sheega khiyaal halu sheeginay inay ku jirtaan baxar buxur u soo sheega kolka waayahay waxaan ku soo gabagabeynaya de hawba haysaa adiga ku shaqeysaba yaa hadda galabkiina ha galo amiin sidoo kale waxaan ku siin doonaa hadii la yiraahdo shahaada sharaf barnaamijkan uu bixiyo annagoo taariikhdaada awal iyo aakhir qori doona oo gelin doona meel kasta oo Soomaali joogto fududeyn doona si lagu helo wixii aad qabatay iyo wax adeegsanaysiin iyo waxaad ku sugan tahay